dalka looga hadlo luuqadda saddexaad ee ugu quruxda badan caalamka, sidoo kalena u saaxiibka ah goobaha loo dalxiiso ee indhadaraandarka ah, mid ka mid ah awoodihii ku midaysnaa Midowgii Sofiyeed. Daawade waxaan u duuleynaa dalka Ukraine si aan uga ogaano xaqiiqooyin badan oo laga yaabo inay nagaga daahsoon yihiin. Ukraine waa dal dhaca bariga Yurub, wuxuuna xuduud la leeyahay wadamada Ruushka, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania iyo Moldova, waxaana dhinaca koonfurta kaga beegan Badda Madow iyo Badda Azov. Waa dal ka kooban 24 gobol, waana dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Yurub asigoo ku fadhiya bad ka badan 600,000 kiiloomitir isku wareega, wuxuuna kaalinta 46aad ka fadhiyaa dalalka ugu dhulka weyn caalamka, ayadoona ay xusid mudan tahay asigoo ah dalka labaad ee ugu dhulka weyn Yurub in Soomaaliya ka dhul weyn tahay. Tirakoob la sameeyay 2001 dadka dalkan waxay noqdeen 48 milyan, balse maanta waa 44 milyan. Waxay dadka dalkan xirtaan dhar wadaniya oo lagu magacaabo fishifaanka, ayagoona sidoo kale faraantiga guurka ku xirta gacanta midig halka ay ku xiran lahaayeen gacanta bidix sida caadada ah. Dadkan waa martigeliyaal, laakiin waxaa aad ugu yar in lagu arko goobaha dadka isugu yimaadaan qof qoslaya ama dhoola cadeynaya. Warbixin ay soo saartayna Travelers Digest ayaa lagu sheegay in dumarka Ukraine yihiin kuwa ugu quruxda badan dunida, malaha dumarka Soomaaliyeed ayaysan arkin. Waxaa laga helaa dalkan bosteejada tariin ee ugu hooseysa, waxaana lagu magacaabaa Arsenalna iyadoona la dhisay 1960kii. Dalkan wuxuu sameeyay diyaaradda ugu weyn dunida, sidoo kale waa dalka 8aad ee biraha culus ee ugu badan soo saara, wuxuuna dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay ilaha dabiiciga ee nafto iyo gaas, balse weli kama uusan suulin ku tiirsanaanta Ruushka.